waxay filla Soomaaliya diyaarisay maanta 500 oo askari oo si gaar ah u tababaran si ay u galbiyaan Mukhtaar Roobo ama Mansuur dilaagii xasuuqay shacabka Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan hooyooyin badan ayuu gablamiyay oo ooyay oo baroortay oo markaasi oranayay Ilaahay ayaa inaga waday awlaadeena oo markaasi waxa sabab u ahay Mukhtaar Roobo ama Mansuur maadaama hooyooyin badan ilmadooda dhulka uu ku daadiyay kooxda Damul Jadiid waxay deysmadiisa kula dagaalamaysaa lafta gareen iyagoona ku bahdili raba madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo maadaama dawladii nabad iyo nolol ay ka hortagtay dhagarta uu la maagana shacabka Soomaaliyeed Mukhtaar Roobo ama Mansuur haddaba maxay tahay faa'iidada Damul Jadiid ay ku qabto in dib xorriyadiisa loo siiyo ninkii dhameeyay xasuuqay shacabka Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan warbixintan uga bogo marka hore like saar muuqaalka daawade si saaxiibo u qalbi jilicsan sidaadoo kale uu u gaaro daawade haddaad ku cusub tahay channelka Xaqiiqa TV subscribe saaro fura gambaleelka waxba ka dhimayso in channelkan aad subscribe saarto adigoo meheradaada ganacsi iyo gurigaaga jooga asxaabtaadana la caawinaya ayaa subscribe inoo saari karta waxayna inaga caawin kartaa taasi isla markaana aan ku dhiiranayna soo gudbinta sirta ka qarsoon shacabka Soomaaliyeed fadlan subscribe dheh channelkan Xaqiiq TV muuqaalkan jamaahirta nabad iyo nolol meel fog ha gaarsiiyaan oo ha ilaaliyaan isla markaana ha difaacaan sharafta iyo cirdiga xabiibil mulaayiin Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ay weerar toos ah ku soo qaadeen kooxda qowleysatada ah ee Damul Jadiid Ilaahay shacabka Soomaaliyeed dhagartooda ha dhaafiye hana ka badbaadiye Mukhtaar Roobo ama Mansuur dilaagii shacabka Soomaaliyeed god dheerna ku riday rajadii shacabka Soomaaliyeed agoonteeyay caruur Soomaaliyeed ka hoysiiyay aabe iyo hooyo cajis ah gablamiyay waalidiin Soomaaliyeed ayaa hadda isu diyaarinaya inuu helo xorriyadiisa maadaama dawladii nabad iyo nolol oo uu hogaaminayay xabiibil malaayiin shacabka Soomaaliyeed ay jeclaayeen waa farmaajo dhagarta uu maagana Mukhtaar Roobo ama Mansuur ayaa ka qabteen isla markaana god dheer oo aan nalal iyo sidoo kale waxyaabo kala duwan oo muhiim u ah adeegyada bini'aadmiga sida caafimaadka iyo sidoo kale cunto dhameystiran aan lahayn ay ku xireen maadaama 2 milyan oo shacab Soomaaliyeed ah ay isaga dartii u dhinteen oo uu laayay oo waxa suuqay kuwa shahaadanayna dhul qudha qudha uu dhaafsiiyay isla markaana uu si bareer ah u dilay ninkan ka hadlayo waa Mukhtaar Roobo ama Mansuur oo dawladda Damul Jadiid ay hogaaminayso hadda qorsheynayso inay xorriyadiisa siiso si lafta gareen ay kula dagaalanto dad badan oo dunida dacaladeeda jooga oo shacabka Soomaaliyeed ka mid ah ayaa walaac xoogana ka muujinaya deysmada Mukhtaar Roobo ama Mansuur maadaama uu markaas isagu sabab u ahaa in muddo 30 sano ah dalkeena Soomaaliya dawlad la'aan uu noqdo isla markaana wadanka ay ku soo badato qolyaha argagixisada loo yaqaano ee dhibaateeya shacabka Soomaaliyeed ninka lagu magacaabo lafta gareen waa madaxweynaha Koonfur Galbeed waana ninka ay doonayso in kooxda Damul Jadiid ay kula dagaalanto Mukhtaar Roobo ama Mansuur dilaagii xasuuqay shacabka Soomaaliyeed ee baabashay waxaana uu wada qorshihii ugu dambeeyay maadaama lafta gareen loo sheegay isla markaana lagu wargeliyay in Mukhtaar Roobo ama Mansuur la soo dayn doono si loogu bedelo isaga lagula dagaalamo lafta gareen oo dadaalo kala duwan wada ayaa waxa uu markaasi heegana geliyay isla markaana uu xirtay airportka ama garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud ciidamo badan ayuu dul dhigay si uu uga hortago inaan lagu soo siideyn ninkan dadka Soomaaliyeed ay inkaaran laha ku ridee maadaama dad badan uu laayay waa Mukhtaar Roobo ama Mansuur ciidamo isugu jira AMISOM iyo sidoo kale kuwa daacad ah lafta gareen ayaa saaka arooriyadii horeeto la geeyay garoonka diyaaradaha ee Shaati Gaduud kuwaas oo heegan buuxa la geliyay iyagoo lagu amray in diyaarad aysan ogeyn Koonfur Galbeed aysan ka soo degi karin garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo diyaaradii timaada ama aan soo ogeysiin maamulka Koonfur Galbeed hawada lagu duban doono sidaasna gantaalo loogu dhufan doono ciidamadii joogay meesha ayaa gabi ahaanba qaatay u hoggaansamay amarka markaas uu soo saaray madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen Ilaahay dambigii ha dhaafe maadaama uu ilaalinayo sharaftiisa iyo sidoo kale sharafta shacabka Soomaaliyeed iyo waliba sharafta xabiibil mulaayiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo kooxdan qowleysatada ah ee Damul Jadiid ay doonayaan inay afashiliyaan oo ay markaasi ka daba furfuraan waxyaabihii uu horay u soo xiray maadaama dawladii uu hogaaminayay wadanka ay baraaro iyo barwaaqo gaarsiisay sharaftii iyo karaamadii ay lahaayeen ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo
sidoo kaleeto qaybaha kala duwan ay ka kooban yihiin ciidamada dowladda ayuu soo celiyey xabiibul malaayiin maxamed cabdilaahi farmaajo. ilaahay dembigiisa iyo dembiga waalidiintiisa ha dhaafe. walaalkayga Soomaaliyeedow, haddii janalkan aad ku cusub tahay waxaana kaa codsanaynaa inaad sabskaraab inoo saarto, waxba kaa dhibi mayso, innagana dardar iyo faa'iido ayay inoo tahay oo dhiirigelin joogta ayaanu idinka helaynaa maalin walba. waxaanu ku dhiiranaynaa inaan saacad walba iyo sikin walba xaqiiqda iyo sidoo kale waxyaabaha ka qarsoon shacabka Soomaaliyeed aanu idiin soo gudbinno. warar kala duwan ayaanu ka helaynaa xafiiska madaxtooyada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, taasi oo sheegaysa in madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen uu wado abaabulkii ugu xooganaa oo uu kaga hortagayo in Mukhtaar Roobow Abu Mansuur aan la soo siideyn. waxaana uu sheegay in Mukhtaar Roobow haddii la soo sii daayo dhibaato baan ay u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka reer Koonfur Galbeed, taas oo ah in dhibaato xoog leh uu ka geysanayo deegaanada Koonfur Galbeed, isla markaana ay sii xoogaysanayaan qolyaha uu ugu yeeray argagixisada. waa sida uu hadalka u dhigay Lafta Gareen oo xalaya markaasi kulan gaar ah la qaatay saraakiisha reer Koonfur Galbeed iyo sidoo kaleeto dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee caanka ka guud ahaan geyga Soomaalida, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed. waxaana uu markaasi waxaana sidoo kale uu la kulmay Lafta Gareen odayaasha reer Koonfur Galbeed ee markaasi ku sugan magaalada Baydhabo. waxaana uu ku wargeliyey in haddii Mukhtaar Roobow Abu Mansuur la soo sii daayo oo damul jadiid ay kula dagaalanto Koonfur Galbeed, in dhibaato iyo sidoo kaleeto waxyaabo aan weligooda ka dhicin ay ka dhici doonto haddii Mukhtaar Roobow la soo fasaxo. waxa uu sheegay Lafta Gareen in uu gebi ahaanba amniga deegaanada Koonfur Galbeed qalqal uu galayo, horumarka iyo sidoo kale waxyaabaha la cabcabay ee markaasi Koonfur Galbeed lagu dhisay ee dowladnimada markaasi ka hana qaaday in god dheer ay ku dhacayso, maadaama nin baabi'iyey shacabka Soomaaliyeed 2 milyan oo qof ka badanna ay gacantiisa ku maqan tahay la soo fasixi rabo. ciidamadii Itoobiya ee ku sugnaa magaalada Baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed ayaa dhammaan heegan la geliyey, iyagoo markaasi ka digtoon in Mukhtaar Roobow Abu Mansuur la soo fasaxo, maadaama awal hore marka la qabanayay ay iyagu markaasi gacan xoog leh ka geysteen. waxaana la ogaaday hadda ka hor markii la qabtay Mukhtaar Roobow Abu Mansuur in dhagar uu maleegayo, isla markaana ku aadan in guud ahaan Soomaaliya uu markaasi rabo inuu ku dabagambiyo oo uu soo xoogaysiiyo ururka argagixisada ee Shabaab. taasi laakiin waa laga digtoonaaday oo durba sirdoonka Soomaaliya ee uu markaasi hogaaminayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo sidoo kaleeto madaxweynihii ugu daacadsanaa burburkii dowladihii soo maray wadanka Farmaajo ayaa ka hortagay oo god dheer ku riday, iyagoona markaasi halkaasi kula socday xaaladiisa iyo weliba waxyaabaha markaasi uu doonayo. haddase arrintaasi oo dhan waa ay ka soo gudubtay oo waxaa markaasi la qorsheynayaa in la fasaxo ninkii dilaaga ahaa ee shacabka Soomaaliyeed baabi'iyey. daawade, adigu ma ku faraxsan tahay in Mukhtaar Roobow Abu Mansuur xorriyadiisa dib loo siiyo?